dhaqanka gobolkani cagaaran ee Gabiley ayaa eed culus u soo jeediyay gudida COVID-19 ee Somaliland iyo waliba xukuumadda Somaliland iyagoo sheegay in gobolka Gabiley uu marar badan kala kulmay cadaalad darrooyin isdaba jooga isla mar ahaantaasina aanay Gabiley ahayn wax gobol ah balse kaliya gobolnimada la sheegaa uu yahay magac waraaba u taag ah oo ay saa'id ku yihiin magaca loogu yeedho barasaabka gobolka iyo taliyaha qaybta gobolka waxaana hoosta ka xariiqeen in haddii aan sida ugu dhaqsaha badan leh arrinkaasi aan wax looga qaban ay kicin dadweyne samayn doonaan iyo mudaharaadyo lagaga soo jeedo cadaalad darradaasi ay Gabiley la kulantay cuqaashan iyo madax dhaqameedkan reer Gabiley oo arrimahaasi ka hadlaya waxa hadaladoodii kamid ahaa waxaan hore u sheegay weynoon qarsanayni oo maalinta ka dambeysana lagu sii joogsanayo oo ah gobolkii Gabiley gobolkan Gabiley aniga wuxuu dhaahaan jadaaya dhagbaan jalaqlayeen horaan u sheegay in taliyaha qaybta iyo barasaabku saayid nagu yihiin ee degmadii Gabiley oo iyadii laga reebay aanu nahay maanta iyadiina waanu ka tagnay degmadiina waanu ka tagnay tuulaanu noqonay dhibaatada dhacday waxyaalaha loo qoonteeyay ee la yiraahdo laga caawiyo dadka kamid baanu nahay dadka la caawinayo dibturasay dadka ugu dhacday noogu dhacday laakiin waxyaalaha barkood ma qaadan karayno mana ogolaanayno waxaanu ka geynaa mudaharaad iyo kicin dadweyne haddii dib loo soo hadal qaado 2,000 oo qoys oo Gabiley la yiraahdo lagu caawiyo waxaanu ka geynaa mudaharaad laba xaalay idinka dhaxayn waxa inaad ku darsataan oo meelaha kale bursinta siisaan ugu dartaan iyo inaad gobol wuxuu yahay noo keentaan hadday 10 kiish ka dhiman yihiin waxa gobolka la siiyay ma qaadanayno Gabiley waxa loo soo qoondeeyay maciiba matuula waxay tahay anagu waanu garan weynay walaalayaal anagu waxaanu idin leenahay idinkoo mahadsan ma geyno arinta ma geynaanu idin leenahay mana qaadanayno waxaanu ma gobol waxaanu ku noqoni barasaabka iyo inanka barasaabka iyo inanka taliya qaybeedka ma labadaas soo dawladda hoose dulsaar ku ah iyaanu walaalayaal gobol ku noqonaynaa gobol ma yihiin waxaan leenahay oo halkan u fadhina oo gaashaan ku dhufanayna waxa Gabiley loo qoondeeyay ee la sheegayo ee 2,000 ee qoys ah Gabiley uma qalantaan u leenahay anagu ninka qaybinay arintaa ku darsado hadduu ka daaqiliga yahay hadduu cid kale yahay ugu darbaan laahay degmadaada iyo halkaad ka soo jeedo gudoomiyaha gobolka loo soo magacaabay iyo taliyaha qaybta labaduba sabab reer Gabiley gobol baatiin ha yiraahdaan bay noo dhex joogaan ayay noo dhex joogaan ha iska tagaan baan leenahay waxaan leenahay inanka gudoomiyaha gobolkiina inan wanaagsan weeyaan waa ragii gobolada maamul lahaa laakiin gobol ma joogee dawladdu meel gobola dawladdu ha geyso inanka taliyaha qaybtuna inan wanaagsan weeyaan waxaan leenahay ma joogaan meel gobol oo taliya qayb ka noqdo ma joogaan Gabiley maalinta wax loo soo doonanayana 2 gobol baa tihiin baa la iyaad leegtiin baa la yiraahdo lagu sabsabaa maalinta wax la siinayana war maxbay noo sheegan waxba dooni maayane sida uu gacanta ku dhahalayda haddaad 2,000 waan qoondaynay degmada agabar aan badh ka gaadhaynin Gabiley baan geynaynaa tidhaahdeen haddaad noo keentaan halkaasay ka soo noqoni nooma keeni kartaan wax ma tare waxba ma tarine marka dawladda waxaan leenahay way gabtay gobolkii Gabiley waxa la yiri 2,000 baa la siinaya gobolka Gabiley marka dawladdu ka ambeynka wadana waxa la yiraahdaa waa gobolkii Florida ee ugu tirada badnaa gabgab maanta marka wax la bixinayana waa halka ugu hooseysa marka waxaan leenahay arrinkaasi nama qabato gobolkana ma qabato qaadan mayno 2,000 loo qoondeeyay qaadan mayno gobolka Gabiley waa gobol ballaaran oo wax soo saar leh degmadii Gabiley soo qoondeys oo aad u ballaaran oo tuulada kaliya baashi maxaan ku dhaca baro kale yaanay ku filayn baynta ay soo qoondeeyay marka waxaan leenahay sida odayaasha Orobo u hadleen diyaar ma inaan qaadanaa dukiish ka dhimeeyo waxa mana rabno وليسكن السهران هيك راعوية تقولوا توصوا على السهران تلقى عباد يدين يقدم يدين ماشي وادقموا وورا بتاعهم ما بهاينو قبل ما ورتي هالكيد يداب عاب كيد ما ينو
gobolka iyagan gabiil lagu sheegayaa gobol maaha waa waraabataag degmada gabiley iyo reer gabiley aqoon xumo kamay ahayn wixii hore ee ay samaynayeen haddii aad noo aqoonsanaysaan waxaanu nahay degmadeeda dadkaygu intuu leegyahay inta gobolka togdheer iyo berbere ay leedaheen boorama yaa hadduu santi ka dhiman yahay ayaan agtayada lala soo marin wixii hore aynu qaadanayna maanta ka bacdi dib uma qaadanayno waxaanu leenahay 2000 ee la soo magacaabay uma qalanta gabiley gabileyna baryada ma taqaano mana hadalno annagu ma nidhaas maxaa wax lanoo sii waayey waxa weeye annagu uma qalaano odayaasha hadalka dhameeyey waxba ku rafurmaya uma qalaano 2000 ee qoys talabaadna gobolnimadaba xitaa lanagu shaabadaynayuun halanaga qaadaan leenahay magaca gobolkana haddaanu gobolkii ahayn na halanaga qaado haddii saamigayga lanoo keeni waayana annaga meel baa lanaga hadal hayeybe marka annagu maanta waxaan ku faraxsanahay midnimadayada maayarkaygana aad baanu ugu barbar taagannahay dhiirigelinta uu muujiyey geesta kale xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka gabiley ayaa iyaguna taageeray hadalkii maalinkii shalay ahayd ka soo yeedhay duqa caasimada gabiley isla markaasina sheegay in meel looga soo wada jeedo cadaalad darradaasi guddida COVID-19 ee Soomaaliland ay kula kaceen gobolka gabiley iyo shacbigiisa reer gabiley waxaanay eedo culus u jeediyeen guddida wacyigelinta COVID-19 ee Soomaaliland xildhibaanadani golaha deegaanka ee gabiley arrimahaasi iyo arrimo kale ka hadlaya waxaa hadalladooda kamid ahaa dareen taabtay golaha deegaanka gobolka gabiley waxaana soo kiciyay dareen taabtay shacabka reer gabiley nasiib daro waxaa soo baxday in gobolka gabiley wixii yimi ee la qaybinayay lagu qaybiyo tuula ahaan taasina waa ayaan daro waxaan leenahay haddii aydan gabiley wax u qalanto aydan keenin gabiley la keeni maayo raashinkaas haddii aad keentaan raashinkaas soo dhaafi maayo caawidla halkaasaan ka soo celinaa guddida waxaan leeyahay runtii halkaa dib ugu noqda gabilow uma cuntanto waxa weeye bableeshan ahaan iyo waxa weeye maxaxad ahaanba gobolkan gabiley waad ogtihiin intaasoo sannadood inuu u taagnaa gobolnimadeedii in la siiyo sida Soomaaliland ictiraaf u raadinayso ayuu gobolkan gabileyna runaantii u raadinaya gobolnimadiisa wixii culays iyo barakshar hore ugu soo dhacay waa loo soo dulqaatay laakiin tan maanta runtii waan ka dhiidhiyana sababtan ugu dhiidhiyana waxay tahay waxa weeye go'aankii guddidu soo jeedisay si gaar u gobolka gabiley dhaqaaleeda u taabtay iyadoo taasi jirto haddana wixii maanta deeq Soomaaliland soo gaadhay in la yiraahdo gabiley tuula ahaan waxa lagu siiyo iyo midna qabanaysa maaha inuu warinta iyada waan diidanahay guddina waxaan leenahay dib isugu noqda libaax bahalkan la yidhaha 2 raqood lagama wada kiciyo Soomaalidu tira annaguna gabiley ahaan maanta guddida COVID-19 waxaanu qaadanay go'aankoodii hore ee ahaa in dhaqaale ahaan cumahana la qabto wixii la soo galayba la xidho waanu qaadanay maanta waxaan leeyahay libaax 2 raqood lagama wada kiciye arrintaasi nama qabato magaalada gabiley ee aragteen waxa ku nool 100,000 oo qof 100,000 qofba aqaladay fadhiyaan intii shaqeynaysan waa la soo fadhiisay de waxa loo keenaya haddana wax gaaraya ahayn iyadna nama qabateen 2,000 qoys baa la yidhi in la siiyo oo heer tuulaha la xisaabiyo de taasi nama qabataan leena annagu wixii aan ku noolayn guddiga idinka joojiyay maantana wixii idinka idin soo gaaray inaad tidhaahdaan war gabiley tuulooyinka ha la mid noqoto nama qabatay maanta sadbursiimaanu doono wixii aanu ku noolayn baa idinka xidh ilmaada reeyal gobol baanu ne gobol wuxuu leeyahay helno duu gobol badan yahay yaadi kalaba laakiin intaasoo degmo oo gobolka gabiley ka soo jeeda 2,000 qoys 30,000 ma qabtaan war ilmaada reeyal haddayna gobolnimadeedu sax aanay ahayn oo sida gobolnimada wax noogu qabeen gobolnimada naga qaato 6 gobol iyo gabiley baan u baahan abaal ku qabnaay noo soo celiya runtii guddida wax qaybisay ee COVID-19 cadaaladda ma marin cadaaladda u noqdaan leh waxa idinka cuntabeeya maaha waxaanad gabiley u soo calaabadisteen gobolka gabiley amba degmadiis waxa ka sii farcama 5 degmo oo kale 5 degmo ee kale waxa ka sii farcama 150 tuulo oo kale haday moodayaan gabiley inay yar tahay ma yara waxaan doonaynaa inaad masaakiinta jamhuuriyadda Soomaaliland saxa ugu qaybisaan raashinka 39,000 ee qoys astaghfiru wa na'uudu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina kulli saaka golaha badidiisu waxay isugu yimaadeen inay xoojiyaan kelmaddii guddoomiyaha degmada ee uu shalay jeediyey ee ku saabsanayd waxaa loo qoondeeyey dadka masaakiinta ah ee masiibadan ay asiibtay horta waxaa caadi iska ah marka wax la qiyaasayo ama la qaybinayaba had iyo jeer dee baahida waxaa lagu saleeyaa sida deegaanadu ay u kala baahi badan yihiin nasiib darro
dee waxaa ka soo yeedhay ee loo qodeeyay gobolka gabiley maaha tii u cuntamaysay maaha markaa guddida waxaan odhan lahayn dib ha isugu noqdaan baahidana ha ku saleeyaan sida loo kala tiro badan yahay gobolkan kursiga madaxweynaha maantay jaanis leeyihiin aynu ka adkaan karayna dee in lagu tashado ayuun baan u fahnaano gabiley maanta in ka adkaan karaynaa in layidhi mid gobol mid jaar mid daneed mid dadeed midna lama eegi waa maxamed xasan sheekh maxamed juba muuqaal maqalka caalamiga Kalson TV gobolka cagaaran ee Gabiley.